ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. bulshada inteeda kale oo aan waxbarashada haysan marka iftiin waxay rabtaa runtii inay ka qayb qaadato baahidaas jirta siday u gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed baahida waxbarasho ee ka jirta marka anagoo waxa jirtay siday ku bilaabtay sidaad ogtihiin iftiin waxa aasaasay dhalinyaro yar oo ka kooban markaas 10 qofood oo runtii dareentay in ay rabaan in wadankooda u qabtaan waxna u celshaan maadaama ay ku joogaan wadankan ay waxbarasho free helayaan ay darasiin yani inay waxna ka dareemi karaan ama ay mas'uuliyadda ka saaraan inay wadankooda u wax u celshaan marka isku mid ah waxay gaareen wadanka waxa ka qaban karo ugu wanaagsan ummadana la gaarsiin karo ummadana anfacayso waxa weeye waa waxbarashada taas ayaan xoog saarnay waxaan sameynay iskuulkii ugu horeeyay ayaan aasaasnay waxaan isla samaysay oo geesinimo u samaysay in ay lacagta ay markii hore dadka ka aruuray laftigooda shakhsiyan iska aruushaan taas oo ilaahay xamdu ku guuleystay iskuulkii ugu horeysay 70% ayaga gacantooda ka timid ay waliba lacagtaas oo ayagoo arday ah ayaga iska aruushay inta kale tan waxa ay u soo cesheen bulshadii Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay maanta waa inta nala joogta oo runtii aad iyo aad ugu mahadsan iskuulkaas markuu uu dhismay dhalinyaradii ay arkeen oo ka faa'iideysanaysa 500 arday ka badan oo ay ku jiraan dad waaweyn iyo dad yaryarba waxay ku dhiiradeen inay barnaamijkaas sii wadaan mu'asasada iftiin sidii ay ogtiin wadankan Ingiriiska ama wadamada Yurub waxa ka jirta in way mu'asasada sida si sharci ah uga shaqeystaan loo qabsano kaleeto wadankan waxay ka haysataa charity qoran oo ka diiwaan gashan marka walilah alxamd yani wax dhiba kama isticmaalin waxa jirta waxaan bilaabnay inaan lacag aruurino oo dadkii ay ka qaadaan qof walba intuu awoodo maadaama ay charity tahay qof walba intii karaankiisa oo sadaqa ah inuu baxsado walilah alxamd hadda waxa bilaabatay yani iskuulkaas markuu bilaabtay iskuul labaad ayaa furmay hadda waxay marayaan iskuuladaas 8 iskuul hal waa secondary toddoba kale waa primary school waxaana ka faa'iideysatay in ka badan 5,000 oo arday ay isku jiraan dad yaryar iyo dad waaweyn waxqabadkaas aad aragteen oo idinku aad ka aragteen muuqaalna aad u aragteen yani ma qabsoomeen la'aantiina iyo ka hor la'aanta ilaahay oo ilaahay runtii inuu nagu caawshay annagana waxaan rajaynaynaa inay niyad saadaqa oo midaan ilaahay la hortigi karna inay noqoto runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna dadkii ka soo qaybtay barnaamijyadaas dhan caawana runtii muhiimadaan isugu nimid oo weyn waxay ahayd barnaamijkaas aad aragteen oo quruxda badan iskuullada dadka ka faa'iideysanaya oo aragteen dad aan awoodin oon aan fursad u haysan waxbarasho inay helaan fursad waxbarasho haddana idinkana aad ka caawisaan oo aad u gargaartaan oo qof walba intuu awoodo inuu ka qayb qaato waxaa kaleetoo jirtay oo hospital clinic ay sameeyeen jaaliyadda gabdhaha Soomaaliyeed ee wadankan UK ay dhiseen taas waxay annagana aan door aan walahay inaan u fulino ay gabdhahan ay soo codsadeen inaan fulinteeda ka qayb qaadano waan u fulinay hospitalkaasna uu dhismay waana aragtaa kulliyadana waa ka aragtaan presentation waa ka aragtaan hospitalkaas laakiinse wuxuu u baahan yahay qalabayntiisii taasoo ku kici karta 50,000 oo pound taasna waxay tahay inaan isla kaashano dadka walaalaha meeshan ka soo qayb galay inay ka qayb qaataan qalabaynta iskuulka clinical hospitalkan oo ku baxaysa 50,000 oo pound 20,000 oo 22,000 oo pound oo ku baxaysa qalabayntiisa qalabayntiisa waxa ku baxaysa 22,000 oo pound dadka ka shaqeynaya oo sanadkii ka shaqeynaya bergeerna waxa waa 8,000 oo pound waxyaabaha kaleeto administration ama expense yaashka ku bixi doona inay noqon doonto 8,000 oo pound marka waxaan runtii caawa u joognaa inaad ka qayb qaadataan sida awba uga qayb qaadan jirteen inaad barnaamijkaas khayriga aad ka qayb qaadataan oo aad dhamaystirtaan inta ka haray aad weligiina aad wadaan anagoo ka duulayno aayadda ilaahay quraanka ku yiri tacaawunu cala albirri wattaqwa walaa tacaawunu cala al-ithmi wal-cudwaan marka waxaan rabnaa runtii inaan ku soo dhaweyno barnaamijkan walaalahay waxaan rabaa kala inta ilaaway in iftiin ay ku mashquulsanayn dhanka waxbarashada kaliya iyo dhanka caafimaadka
waxay kala ka qayb qaadatay si firfircooni uga qayb qaadatay dhanka humanitarianka oo ah dareemka sanadkan inay ahayd sanad aad iyo aad u xanuun badnaa qaasatan dadka Soomaaliyeed marka waxay bilowday inay si humanitarian relief ugu qaybiso ama cunno ay siiso dadka masaakiinta ee aragtida magaalada Muqdisho soo qaxay waxa ay si firfircooni iftiin uga qayb qaadatay waxay siisay more than 2000 in ka badan 2000 oo qoys ayay kaalmayn ay siisay taas waxay ka timid idinka inta waa donationkii iyo sadaqadii wanaagsaneed aad siisay waan mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Dr. Saacid sida quruxda badan ee uu noogu tilmaamay ama uu nooga sheekiyey waxqabadka hay'adda oo aan muuqaalna u daawanay haddana uu na tusiyey meel roob u baahan hadal wax kama taro dadka caawa halka fadhiya waxaa laga doonayaa sida awalba ay wax uga qabteen hay'addan oo 8 iskuul laydin sheegay aad idinku wax uga dhisteen inaad iskuullada kale nimanna aad ku dartaan baahiyooyinka kalena aad wax ka qabataan dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada ardada iyo guud ahaanba horumarinta dadku waxay u baahan yihiin mar iyo laba iyo saddexna wax laguma qaban karo laakiin waa intaasoo lagala sii dhowaado oo inteenna caawa halka fadhisa markay bilaabaan saaxiibadoodana ay u sheegaan asxaabtooda kaliya qarabadoodana ay u sheegaan wax badan baa la qaban karaa waxaan jeclahay inaan markan ku yeero imaamkeenna masjidka halkan ku yaala caawa Edmonton Sheekh Maxamed Cabdi Xasan Shiino oo isagu kamid ah culimada aan ugu talagalnay caawa iyaguna jeclaystay runtii culimo ahaan inay munaasabadda ka qayb galaan si ay noogu muujiyaan wanaagooda iyo siday u jecel yihiin in aynu wax wada qabsanno oo aynu istaageerno wax badan baad ka dheehateen telefishinada isagoo yacni dadka u sheegaya in wax la keeno caawa annagoo isor fadhina ayuu dhihi doonaa annaguna waa ka yeeli doonaa haddii alla ka dhigo Sheekh Maxamed Cabdi Xasan Shiin kusoo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad wada salaamayaa dhammaan wujuuhda barakaysan ee ka soo qayb galay barnaamijkan khayriga ee xaqiiqatan la yaab kale ee aad dareemayso inay ka dambayso caqliyad aad iyo aad u firfircoon oo dareensan mustaqbal aad iyo aad u qurux badan oo ay ugu fakarayaan inay u soo bandhigaan ummadooda ku noqon maayo oo ku dheeraan maayo xaqiiqatan in aan ammaan badan meeshan ka idhaahdo maxaa yeelay indhaheena ayaynu wax ku wada arkaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan baryaynaa marka koowaad inuu inoo barakeeyo jalsadan oo ay noqoto jalso aynu ku wada faraxno markay dhammaato kulligeenba maxamed xaaji axmed cagmadhiga oo ka mid ah isaguba dadka aad iyo aad ugu darban ee ugu helan wax ururinta iyo maaragtay khayrka inuu ka qayb qaato waxaan filayaa inuu isidho wadaadku malaha uu kaa cimaamad wen yahay oo sida igu soo wareejiyey walaalayaal qiso yar baan ka horraysiinayaa barnaamijka fundraisingka ee aan soo bandhigi doono waxay walaaluhu inoo soo bandhigaan 50,000 oo pound caawa inaynu rays garayno waa amount aad iyo aad u yar marka la eego maaha tirada aan meesha ku fadhino oo yaan laga nixin laakiin waa tayada aan yeelan doono biidni illaah
waxaan xasuustaa masjid ku yaala magaalooyinka Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa la soo bandhigay in la dhiso. Soomaalidu waxay sida badan hadda taqaanaa oo ay taqaanay masaajidada marka la dhisayo in carabta loo tago oo wax laga soo ururiyo. barnaamijkii masaajidka markii la soo bandhigay waxaa la dhisay $300,000 ayuu ku kacayaa. $300,000 waxaa la rabay in dadkoo dhan laga ururiyo oo ay noqoto bilow dabadeedna muddo qaata bal intii uu masaajidkaas ku dhammaan karo. haddii aynu isweydiino tolo masaajidkaas imisa $300,000 lagu ururiyey waxaa laga yaabaa qofo wax inuu yidhaahdo, laakiin marka khabarul yaqiin la sheego kama badnayn $300,000 muddo daqaa'iq ah in lagu dhammaystiray oo lagu ururiyey. marka £50,000 oo laynoo soo bandhigay waxaan filayaa inaanay wax badan inagu qaadan doonin biidni illaahi tacaala. marka aynu ognahay aayaddii akhuuna cabdullaahi uu inoogu bilaabay oo inagu akhriyey waxay ahayd aayad madluul aad iyo aad u xeel dheer xambaarsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo koobay khayrka insaanku u sacyiyo iyo waxa uu qabto oo dhan insaanku inaanu khayr ku jirin ilaa 3 shay mooyaane. man amara bimacruufin aw man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. saddexdanun hadday ku soo koobmi lahayd waxqabadkeennu adduunyada intaan joogno khayr badan oo caawa kan walaalaheen ay noo soo bandhigeen ka badan baynu qaban kari lahayd. marka insha allahu tacaala waxaynu gudageli doonaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala idhaahdo in aynu yabohdii £50,000 aynu bilowno oo dadku qof walba mustawihiisana waa la yaqaanaa xagga dhaqaalaha, xagga khayrka iyo u darbanaantana iyo tawfiiqdana ilaahay baa dadka kala siiya. waxaynu u baahannahay marka figarkaas in aynu insha allahu tacaala gaadhno sida ugu dhaqsaha badan. khayrkaana waxaan ku bilaabaynaa insha allahu tacaala dadka ugu sarreeya waxa ugu badan bixin kara. waxaa laga yaabaa haddaan amount qabto oo idhaahda inta ayaa bixinaya in aan ka hooseeyo meeshii la rabay. haddii aan fogaadana in la idhaahdo wadaadka waxbuu ku socdaa. marka labadaasaan rabaa inaan u dhexeeyo oo aanan meel fog qabsanin. maxaa yeelay walaalayaal 50,000 oo barnaamijka klinika ee faa'iidada uu ummadda u leeyahay qof walba uu garan karo. waxa aad ku bixisaa waa wax aakhiradaada meel aad iyo aad u weyn kaaga gelaya. habeen dhexdaas oo aanay ka soo wareegin bil muddo ah ayaa barnaamij noocan oo kale ah aan ka qayb galay. dadku intan way ka yaraayeen oo aad bay uga yaraayeen. weliba waa la saluugayo waxaa la lahaa dadkan waxba ka soo bixi maayaan. laakiin markii yaboohii uu dhammaaday lacag 40,000 ah ayaa ka soo baxday. dad aad cadadkoodu intan uga yaryahayna way ahaayeen, rag iyo dumarba. marka waxaan qiyaasayaa caawa in ay ka soo bixi doonto inta in aad iyo aad uga fara badan insha Allah. What we gathered here today to try to accomplish, and that is to give our contributions and donations and support to what's going on there in Somalia by
getting behind and standing with the brothers and the sisters from the IFTIN Foundation. There's just one point that I want to bring to your attention, inshallah. And this point is connected to donating, contribution, but it's also connected to every aspect of our lives. It's a principle. Unfortunately, here in the UK and other than the UK, many of the Muslims, especially young people, we don't understand this principle, and as a result of that, we create a lot of shackling for ourselves. 15, from what I understand, they started out 10 people, and with those 10 people, they were able to build the first school. So every journey begins with the first step in Al-Islam, as Muslims, in Al-Islam. The organization 15, from what I understand, they started out 10 people, and with those 10 people, they were able to build the first school. So every journey begins with the first step in Al-Islam, as Muslims, in Al-Islam. The Prophet ﷺ started giving da'wah to Allah, and there were only 4 people who were with him at the beginning. 4. Khadija was the first grown lady. Abu Bakr was the first grown man. Ali ibn Abi Talib was the first shab. And Zayd ibn Haritha was the first free slave. And after they made efforts, only those 4 plus the Nabi, 5 people, sallallahu alaihi wasallam, now we have over 1 billion Muslims. The Nabi never said, sallallahu alaihi wasallam, and his religion is not a religion that says you can't do something. You just have to be realistic and you have to get to work. So the principle that I want to share with you brothers and sisters here today about supporting this program and this project, but it extends beyond this. It's the lady who's divorced and she's with 5, 6 children and the husband is not there. It's for the one also, this principle, it's for the one who's in the audience and this person doesn't have a job, his immigration issue is up in the air. This principle is a principle that's established in the Quran and the Sunnah, and it'll help us to accomplish many things in our lives. And that principle is, worry about the small things and the big things that take care of themselves. Worry about the small things and Allah will take care of the big things. Don't look at an issue like building schools or hospital or other than that as being a task that is insurmountable. No. You just do what you have the ability to do, and Allah will take care of the rest. This point is established, as I mentioned, in many ayat of the Quran, many ahadith. And as I mentioned in the beginning of this talk, the best speech is the speech of Allah. And the best guidance is the guidance of the Nabi. I'm sitting here, and I don't understand most of what's being said. But when the Sheikh started doing, I think it was Somali poetry, he seemed to be very passionate about it, and you people were into it, and that's okay, as long as it doesn't go against the deen. And I don't think he said what's against the deen. But better than that speech is the Kitab of Allah. And that's not putting that speech down, and that's not putting your ajdad down. That's something that every Muslim has to believe. Khairul kalam kalamullah. And the best guidance is the guidance of the Nabi, sallallahu alaihi wasallam. So this principle comes to us from the book and from the Sunnah. What's the principle again? The principle is take care of the small things and the big things will take care of themselves. Don't look at yourself as being saghir and don't make yourself mustasghar. Take care of what you can do and Allah take care of the rest. One of the many ayat that support this is what Allah Ta'ala mentioned in Ali Imran in the beginning of the surah, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. Allah is the one who revealed to you, Ya Muhammad, the Quran. In the Quran are ayat that are muhkamat, they're clear. Any Ajami, Arabi, man, woman, the new young brother, revert, anyone can read them and he can understand them. And they're the Kitab, they're the majority of the book. Qul huwallahu ahad doesn't need any tafsir. The Muslim who becomes a Muslim in Finland, when he becomes a Muslim, the white man in Finland, you tell him, Qul huwallahu ahad, he'll understand it, and most of the Quran is like that. But in the Quran are some ayat mutashabihat. We don't know what they mean, but they're the minority. The Kitab are the ayat that you can understand. That's a sign of an indication, again, brothers and sisters, that in Islam, our religion is simple, simple.
You bring one of these kuffar who say that Isa ibn Maryam was born on December 25th and they're about to have a party next week, and you ask them, explain to me that Bible, none of them will be able to explain it because all of their book is mutashabih, all of it. So this ayah goes to show, again, Islam is simple. You take care of the small things. Allah didn't make it where you have to be an alim to understand the Quran. You can be ummi, can't read and write, but you can understand that Quran, the majority of it. Another example of the point, again to reiterate and to repeat, about this issue. I'm not going to come here and just give you ayat about give sadaqah. I want you to understand this point that's connected to this, and it's connected to your personal lives. It's connected to building a community. It's connected to having a family. It's connected to educating your children, and other than that, here in the UK. Allah Ta'ala mentioned in the Quran, مَا كَانَ لِبَشَرٍ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. It is not possible, it is mustahil for Allah to give a human being, a Nabi, a Rasul, mustahil, that Allah will give him a book, that Allah will give him his sunnah, that Allah Azza wa Jalla will make him a Nabi, and then he turns around and says to the people, worship me along with Allah. Isa ibn Maryam never said that, wa Rabbil Ka'bah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam never said that, wa Rabbil Ka'bah. But those prophets say to their people, Kunu Rabbaniyin, wa hadha wa shahid. They tell their people, everybody here, the Nabi said, Kunu Rabbaniyin. Be a Rabbani. You people have a long history of Al-Islam. People in this room, from Somalia. Arab blood is inside of your blood. This ayat of the Quran that Allah Ta'ala mentioned, Kunu Rabbaniyin. What is the Rabbani that Allah told us to be? You ask the average Muslim, what's a Rabbani? We don't learn the Quran. We're not connected to the Quran. I don't know. So the answer is, and it's connected to the point that I'm trying to make. Rabbani, according to those scholars of Islam, like Imam Abdullah ibn Mubarak and Imam al-Bukhari, the Rabbani is the alim or the person who teaches the people the simple knowledge before the big knowledge. Take care of the small things before the big things. Before you can establish the khilafah, before you can establish proper jihad, you have to do birr walidain. That's right in front of your nose. Before you can establish the khilafah, which is important. It's important, it's from our deen. You have to pray 5 times a day. You have to wear hijab. So I find it disturbing how we find many people, we want to talk about these big things, a lot of kalam, scream, get the bullhorn, but the reality of the issue is, not only are we going against the sunnah of the Prophet ﷺ, who for 13 years in Mecca, all he said to the people was, Qulu la ilaha illallah. Take care of the small things, and then the big things that take care of themselves all by themselves. Many ayat, but the brothers only gave me originally 10 minutes to talk. I said, 10 minutes? 10 minutes? They said, okay, we give you 30 minutes. Now they cut it down to 25. So the time is going because I only have about 20 minutes left. Inshallah. This principle in the Quran and the Sunnah, connected to ifteen, connected to your marriage, connected to your business, connected to your community, connected to your local masjid, connected to every aspect of your life. Take care of the small things, and Allah will take care of the big things for you. From the Sunnah, the Prophet told us, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, inna ahabb al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. The most beloved deed that you can do, the thing that you do that Allah loves the most, are the things that you do consistently, even if it's a little. Even if it's a little. The Nabi told us, sallallahu alayhi wa sallam, Muslims who are in this society with these kuffar, these kuffar are now coming down on us because we have some crazy people here in this country who are claiming Islam, wanted to blow people up and kill people and hurt people. We're abusing the system, we're lying, we're showing everything other than our religion. The Nabi told us, sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walau ayah. Tell the people about me, even if it's one ayah. He didn't say get up here and give the khutbatul Jummah, the khutbatul Eid, give a long dars. Tell the people, even if it's one ayah, something small. That's whether you're talking to kuffar or whether you're talking to Muslims. The point is,
You don't have to do a lot in Al-Islam. All you have to do is a little. When you do it the right way, Allah subhanahu wa ta'ala, He would turn it into something that you didn't imagine. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went into some issues, and I have to mention here concerning this. Do what you have the ability to do. My son has the paper, someone showed me this. If you take this and you just donate 1 pound, 5 pounds, 10 pounds, that little bit is not okay for the Muslim to see that little bit as being small. The Prophet told the people, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل ثم ينظر تلقى وجهه فلا يجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. Every single one of you, he said, not a single one person will escape it. Every one of you, you're going to stand before Allah Yawm al-Qiyamah. And there's not going to be a translator between you and between Allah, because He knows all of the languages. The person standing there before Allah is going to look to his right, and he's going to see his good deeds, no matter how big or how small. 5 pounds, he's going to see those good deeds to his right. He's going to look to his left, he's going to see the bad deeds. Then he's going to look in the front, and he's going to see the hellfire. The Prophet said, fear that hellfire even with half of a day. Even with half of a day. Don't look at 5 pounds as being something insignificant in the deen. لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف. None of you should look at anything that's ma'ruf as being small. And one hadith he said, حتى أن يلقى أخاه بوجه طلق. Even if you were to meet your brother with a smiling face, don't look at that as being small. That's a big sadaqah with Allah. And another hadith he told the women in the same hadith, if you women cook food and you have the maraq, add on to it some water and send your neighbor a bone with some soup. dad aqoon-yahaniin ah oo indheergaradinaho oo ikhyaaraho curuur leh baan idiin arkayaaye assalaamu calaykum. intaasi way iga salaaneen aan ujeeddada raacsheen Englandan hadda joogno Ingiriiska dalkiisan midab iyo aftoona intee baan is aqooninoo ardigiisa ku nool. intee baan is aqooninoo ardigiisa ku nool ururkiinan midoobay ee iskaashiga keenay dhalintiinan israaciyo hay-adad unugteen iyo magaceedoo iftiin ah waa ilaah mahadiisoo ammaan baad mudantiin ilaahay amarkiin ammaan baad mudantiin intiina isxilqaatay caawa joogta agtayda in iskuulla shaqeeyiyo isbitaallo la yeesho abaaraha la gargaaro aqoomaha wax la siiyo jahligii la ilaawo oo isku filaansho la gaadho aynu saaro awoodda ilaahay amarkiin aynu saaro awoodda arrintan ka hadlaayo idinku waad ogtihiin idinku waad garateenoo indhihii kala qaado ilays baad la baxdeene ujeeddadiinna wanaagsan u tilmaama dadkiinna oo aadanaha la heshiiya u tilmaama dadkiinna aadanaha la heshiiya ardayda dalabteen iyo ubadkiinna daneeya oo aayatiin u sameeya intii aad qabateenna waad ku mahadsantihiin haddana fani kama wadna faanole baa la odhan jiray اللهم نحرس بك الوجه محمد سيادة مركي يعني يضع هول كست أضرب توحيد للي تروح على تري وهذا بعد كل شيء وحاول يعني فرد هم بيكاه هذا عذر علام بيكاه هذه ثاني وقبتين هكذا لقى صوتستين ذاتك بدك يسووا بها إنك تروح عين الأمة هنا يا إلى كبرا يا إلى كدين بدن يا إلى كهنتي بدن يا إلى كدر بلارو إلى كدر ولكن هذا ما دين يسرعه يا إلى كل تبعه.